Welcome my city, welcome Luxembourg. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن ومركلة يفلق كله يوتيوب كداونا يسوى $1 دولار. هدي أتكلم الكعصبة هاي لايك سبسكرايب وويكندي وحنو كلام مقنعين مدفرة بدن وقدام بين وحنا صار لابتي وحنا نشوف سنترال كحافظة ديدلانش وحنا نشوف كوميونك أما دولتها سلوات اللي حافظا كون أهانتي وحي لوكسمبور وموجي سي أتاجر وين dalka Ukraine ugu dambeeyna waxaan soo gaaray halkan si aan falo qurux badan iniga diyaariyo iyo weekend qurux badan waa sidee maalinta weekendiga Luxembourg dabcan clipkan ayaynu ku wada daawan doonaa magaaladu magaalo camiranba mise waxa weeye maalin maran clipkaad ku arki doontaan horena socon doonaa Ramadaan Mubaarak اخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي dabcan waxaanu soo gaarnay mid kamid ah loogada xaafadan Dudlanshi kuma dhex taalo bartanka magaalada ee waa gobol kamid ah gobolada dalka Luxembourg waxaana weeyay gobolada u soo xiga dhanka caasimada hadii aynu tagno loogada Dudlansh dabcan looga sidoo ay noqon kartaa waxaynu booqanaynaa halkaasi si falo qurux badan aanu sii wadano ugu dambeyn waan soo laabtay waxaan ka ahay bartida YouTube-ka active adigana waxaan ka codsanayaa hadii aad clipka ku cusub tahay ama aad ku cusub tahay YouTube-kani inaad like subscribe kanalka tiraahdo si clipyo qurux badan aan kuugu soo gudbiyo bartanka Dudlansh sidan ay tahay maalinta weekendiga dabcan سامحيني وطولي halkani waa centralka xaafada ama magaalada Dudlansh halkan iga muuqata gadaasheedana waxa weeye loogada ugu weyn ama waxa weeye calaamada xaafadu ay leedahay waxaana ku muujisan magaca Dudlansh oo ah sidoo aragtaan magaca casaan iyo madow kala ahaan iskugu dhex jira dabcan maalinta weekendiga xaafadaha Luxembourg magaalooyinka maalinta waliba axada ama anagu aan iraahdo Dimash san ay u mareeyeen wada aragtaan u malaynayaa waxa weeye intiina qurbaha joogtana wataqaanaan intay maalinta Dimashku maalin la nasto ama maalinta axado dhabahantii falogani wuxuu noqon doonaa farka qurux badan daruun xaga saraad ku arki doontaan كبرت عليك 19 سنة dabcan waxaan soo gaarnay meel qadiim ah oo kamid ah meelaha waxa weeye ama restaurantiyada xaafadan ku dhex yaala ee xiliyada vacationka ama weekendiyada dadku waqtiga ku qaataan halkan inii muuqata waxa weeye stage yar oo dhaqan oo waxa weeye dadka iyaga music xilliga u tumaya weekendiga ama comedianka ay soo istaagaan halkana waxa ka muuqata kaniisada ugu weyn xaafadan Dudlansh oo ah kaniisad qadiima oo xilligii maxay ahaydeen dagaaladii ugu dambeeyay wadankan soo galay gabi ahaantiisa halkan ka dhisnayd dhabahantii xaafadan waxay leedahay taariikh weyn oo ka duwan xaafadaha kale waxa weeye xaafadani waa xaafad run ahaantii qadiima Dudlansh xuduud ahaana waxay u dhowdahay gobolka marka la eego caasimada uga dhow yahay xuduudaha dalka Faransiiska ayuu u dhow yahay dina falogeena gudaha ayuu sii gali doonaa run ahaantii waxaad ka malaysanayso Luxembourg iyo waxay tahay isku mid miya horey moo maqashay xaafadan Dudlansh inay ku taalo degmadan Dudlansh inay ku taalo dalka Luxembourg mise kaliya waxaad maqashay Luxembourg inay hal magaalo tahay falogani dhabahantii wixii ni kala cadeyn doonaa waxyaabo fara badan falogeena hore ayaanu sii wadan doonaa waxaan sii gali doonaa gudaha magaalada waxaan dhex socnaa centralka magaalada oo ah halka ugu weyn
halkan waxaa ka dhisan restaurantiyada supermarketyada cafeteriyaasha bangiyada ay leedahay degmada tan laakiin maanta waa axad oo maalin bilaa buuq gabi ahaanba ay taagan tahay xaafadan run ahaantii waxaad arkaysaa keliya dadka faamiliyada ee u lugaynaya raxan-raxanta sidoo kale waxaad kula kulmi kartaa dadka baaskiiladaha wata ee centralka magaalada dhex maraya maanta intaa wax ka baxsan oo kale kuma dhex arki karta xaafadan waa maalin jawi ahaan rooban maxay haydeen temperatureka ama tabaqiyatuuqa xaafadana maanta waa mid degan run ahaantii horaan usii socon doonaa si balfaloga qaybo kale iyo meelo kale oo fara badan aan cagaha hoos Welcome my city Dudlash. Welcome my city Luxembourg. halkaan soo marnay waa qayb lagu iibiyo ubaxyada falaawarada oo u kala baxa 3 qaybood dhab ahaantii qaybta koowaad waa qayb qaybta dadka lamaanaha ay isu geeyaan qaybta qabriyada ay geeyaan iyo waliba qayb xilliyada xafladaha dhalashada ay isku geeyaan yaan soo marnay kadib waxaan tagi doonaa mid kamid ah baagaga lagu nasto oo dabcan gadaasheeda idinka muuqda bagaas waxoogaa weyn ku nasan doonaa kadibna vloggeena ayaynu horay uga sii socon waxaan soo gaadhay baag kamid ah baagyada ugu weyn xaafadan ama meelaha lagu nasto ay dadku ku nastaan dhab ahaantii baaggan waxaa ka muuqda jawi qurux badan qaybtaasi waa qaybta lagu ciyaaro kubadda basketballka qaybtani waa qaybta nasashada xilliga fiidkii ama galabtii shaqada laga soo rooxo sidoo kale waxaad aragtaan falaawarada xaafadan dabcan inay yihiin falaawaro saaid u qurux badan keliya waxaasna waxaa u qaabilsan oo qurxiya degmada ayaa qurxisa waxaan rajaynayaa Dudlansh in maalmaha kamid haddii aad Luxembourg timaado Dudlansh inaad soo booqato dabcan waad aragtaa falaawaro qurux badan oo ah falaawarada run ahaantii maxay haydeen lamaanaha bal vloggeena oh my god how's the day really is beautiful day waxaad aragtaa soo kale in falaawaradani ay midab casaan yihiin waliba falaawarada xilliyada aroosyada maxay haydeen meelahani lagu qurxiyo meelahana waa meel kamid ah dadka samarka ama xilliga lagu jiro kulaylaha meelaha ay ku dhigtaan xafladaha aroos dhab ahaantii waxaan soo gaadhay baaggan lagu nasanayay vlogga qaybtii horena waad ku aragteen baaggan isla waxaad arki doontaan daruun xagga saraa oo xaafadan duubaysa waliba si qurux badan u duubaysa arki doontaan teeda kale run ahaantii maxay haydeen YouTube-ka waqtigan dambe waxoogaa kaliya ma soo geliyo mashquul jiray awgeed laakiin waxa isku dayayaa markasta inaan soo laabto kaliya qurux badan inoo soo gudbiyo oo idinkuna ku baashashan adigana waxaan ka dalbanayaa dabcan haddii YouTube-ka ku cusub tahay like inaad share tiraahdo soo kale wixii fikirkaaga ah hoos aad ku soo cabirto haddii wax su'aal qabtana inaad iga soo weydiiso Instagram-kayga kusoo dhawow caasimadda quruxda kusoo dhawow magaalada deganaanta kusoo dhawow magaalada dalxiiska ee Dudlansh qaybtani waa qayb kamid ah meelaha rabriska ama xilliyada fiidada la sameeyo dancingka lagu dancing gareeyo sidoo kale waa meel kamid ah meelaha xaafadatan ugu quruxda badan dabcan ay dadku ku nastaan xilliyada ay qaadanayaan waqtigooga sidoo kale waxaan tagi doonaa qayb ay ku ciyaaraan ciyaalka sidoo kale waxaan tagi doonaa qayb sportiga oo ay leedahay xaafad kaste oo kamid ah dalka Luxembourg dabcan waxay leedahay baag sano kala weyn kow maaha laba maaha saddex maaha waa dhowr baag oo qofku ku nasto waqtigiisana uu ku qaato dabcan maalmaha uu fasaxa ka yahay shaqadiisa run ahaantii adiga iyo aniguna maanta bal inagoo ka faa'iidaysana waqtiga quruxda badan haysano iyo 10ka dambe Ramadaan waxaan isku taraay garaynayaa dabcan inaan meelaha ku soo tuso ilaahayna waxaan ka wada rajaynayaa dhammaanteena inuu soonka inaga aqbalo Ramadaanta khayr noogu dhameeyo Ramadaantan iyo Ramadaana badan oo fara badanna aan wada joogno farxad dhoola cadayn iyo reereyn aan wada qaadano horey waxaan soo gali doonaa qaybaha kale ee maxay haydeen vloggeena inkastoo vloggeenu goor dhow uu ku soo gabagaboon doono ugu badnaan 8 daqiiqo waxaan arki doontaan muuqaalo darowna oo xagga sare ka duubaya xaafadan hadduu Allah wada loo galaado horey baan u sii gali doonaa klibkeena waan sii socon doonaa أنا كبرت عليت 19 سنة
كبرت عليك 19 سنة gaadhay qaybtan ah qaybaha lagu sameeyo sportiga ee ciyaalka ku jimicsadaan xilliyada weekendiga soo kale ay ku jimicsadaan xilliyada ay free time ka haystaan qaybtan waxay isugu jirtaa qaybo badan ah sida shirmeedida waxaan naqaan inagu Soomaaliga soo kale waxay isugu jirtaa meelaha shalowga ee laga soo dhaco soo kale waxay isugu jirtaa meelaha shabaga ee la dhex galo waxay ka kooban tahay run ahaantii meelo fara badan bal halkan waxoogaa waan si dhex gali doonaa si waxyaabo fara badan u aragno okay let's go adiguna anadii la socotaa run ahaantii fologani waxa rajiinay noqdo folo qurux badan waqtiga aad ku qaato haddii soomantayna haddii soomanahay dhammaantii ilaahay waxa ka wada rajiinaa inuu ilaahay soonka inaga aqbalo tobanka dambe Ramadaan maanta waa maalin aad u qurux badan runtii ma garana xilligan fologan soo gelin doono laakiin waxa isku taraagaraynaya isla maanta inaan fologan soo geliyo hadduu allaha abadalo ogolaado weliba isla xaafadan dudlaash أنا أمر أفين مانتا درون حاجة صارت كاركي دون تارنا هانتي فلقني وفلق روح بدن فلق يدي هراي. Oh so let's go come on. طبعا واحد سوق لي ميلها هوست لوجا سيبحه هانتي ميشن وحي وقتها ميل هانتي تعب أحبك اللي سوق ليه قف كذا كمرتيجي سعيد المشرو. Oh my god هل كان بالا سيمريا طبعا هل كان سؤال بحياه روسي كليتونا it is gone away oh my god عصي بدرم يا no oh hello let's go it is 1 2 3 4 5 no real wow okay قيبت ما كليتونا I don't know ما قرانيس لو كليو لكن اسكو تراي كليتونا No. Okay, really? It's still ماشي واحد صعد قدها. راسي صعد أنا. كل هاتي ميراها واحد ليهين. طيب في ربنا. Oh my god. قاعد أسرع ما ينصي حتى. Okay, let's go. Today is فلق it's hard really. ما أنت فلقوا. وأدقي هايرون هانتي. Oh my god really. Because هلقى عنك ليه استعمالية. Oh my god. taas waa dhibta halka aan ku isticmaalaya hore u sii socon no really it's not hard can you help me oh my god oh my god oh my god oh my god oh let's go gonna fast oh after dal waxaan soo gaarnay qaybtani waxaan soo sameynay qaybo fara badan still waxa dhan qaybo fara badan dhammaan kama wada baxayno haddii niraado dhammaantood wada sameynayna it's really too hard way adagtay qaybaha kale u sii gudbi doonaa horaan sii socon doonaa waan soomanahay daal fara badan ma runtii dareemayaa kilibkana waxaan ugu talagalay only 8 daqiiqo meelahan oo dhan dhabaantii waa meelaha waqtiga lagu qaato xilliyada weekendiga inkastay Ramadaan tahay ayna tahay maalin Axada laakiin ma garanayo kilibka maanta soo gelin doono laakiin insha Allah waxaan isku talagalay doonaa maadaama waqti badan aan soo gelin video YouTube-kayga inaan maanta kilibkan soo gelin doono haddii alla badalo ogolaado birahan runtii waa biro qadiim ah weliba xaafadani waxay leedahay ruuxantii biro qadiimo oo ilaa yow xilligii World War dagaalkii labaad ee adduunka ama second mondial guerre baan nagu dhadaa xilliyadaasi ay ruuxantii maxay haydeen ay birahani ay jireen marka birahan dhabahantii waa biro